Soomaaliya qof asaga raba inuu dhulka isla dhaco kor uma soo qaadi kartid. Qof isliidaya haddaa aragtid si kasto aad u dhiirigelisid, si kasto aad u waanisid, aad wax ugu sheegtid waxba kama bedelaysid. Because self confidence wax la dhaho ayaa ka maqan qofkaas. Macnaha malahan hami uu naftiisa kor ugu qaado kalsoonidiyaa ka maqan, halkaasuu faarab ka yahay. waxaan arkay dood gabdho dhalinyaro ah qurqurux badan ilaa ay 30 jira ama 30 ku sii socda waxay ka doodayaan guurka iyo in la isla guursado. waxaan arkay gabar yar oo qurux badan waxay ku doodaysaa leedahay ninka afar baa Ilaahay u baneeyay, marka anigu malihi waa ila leeyahay, marka waa inaan ogolaado. gabar kale waxay ku leedahay naaya ma dhigi kartid ninkeyga aniga ayaa leh, waa lagula leeyahay oo gabar walbo ayaa kula leh sharci diiniin ana. gabar kale waxay leedahay diinta islaamka waan ogolahay waana qaata madaxeena ii saaran tahay, balse aniga waxaa matalaa dooqeyga ayaan matalaa. dooqeygana intaan meelaha dhan fiirfiiriyay ayaan kala soo dhex baxay ninkaas. waa inaan asagana uu tixgeliyaa inaan aniga ogolayn in qof kale toot wax la wadaago. saas darteed aniga la ilama guursan karo. gabadha kale waxay leedahay waa qasabo waa lagu la guursanayaa waa la isla guursanayaa waa isla guursanaynaa. waxaa isweydiiyay gabar qurux badan oo la soo koriyay miyaysan ahayn? waa aragteen gabdhaha markay yar yihiin waa aragteen hooyooyinaan ahay 20 magaca gabadhaad ugu wacaysaa, magacba magac uu ka qurux badan yahay. waxba waxa ay ka qiimo badan yihiin ku tilmaamaysa xaalada gabareeyda quruxda badneeday, macaanta badneeday, asluubta badneeday, indhooroonay, geel gooysooy, saanay adduunyo adiga macnaha dharkay ku marsantaa. waxa ku soo korisay waxa inay dadka dhan ka sareyso, in ay tahay boqorad. waana boqorad. gabar walba guriga hooyadeed iyo aabaheed waxay ka tahay boqorad ay ka tahay. halkaas ay familku u saaran tahay, hadalkeeda lagama daba hadlo. waxa ay dalbatana miiska la wada saaraa. hooyo walba aaba walba guri walba fiiri waa arkaysaa taas. gabadhii saas lagu soo koriyay ayaa maanta rabta inay dhulka isla dhacdo oo ay israqiisiso oo ay iska soo gooyso inaysan wax jira ahayn, ay inay tahay harharaay sakanhaan ah. sheekooyinkan raqiiska ah ragga Soomaaliyeed ee maskixiyan idin geliyeen mental abuse ah rag way dhamaadeen waa in la wada wadaaga. nin walbo fiican naag ayaa haysato, waxaas waa raqiis. macnaha waxaa lagu tusinayaa oo maskixiyan ahaan lagu gelinayaa in lagu maamulan karo. marka nin waa buuxa istartiibiya orod ma jiro. sida gabar ay u dhalanayso ragna u dhalanayaan. guri walba fiiri qoys walba waxay haystaan 3 wiil 2 gabdhood 3 gabdhood 2 wiil ay haystaan. marka nin ma jiro xasr waayad waa adiga maskaxda leedika galiyay. marka adiga saa tahay waxa tahay helaysaa. haddii aad tahay qof samadaas isgeeyay oo kor isku qaaday waxaa helaysaa mid kor ku qaado boqoradeeda dhulka meesha aad ku istaagaysid xataa ka qaad sida adiga iska dhigto aa lagu la dhaqmayaa. marka kor isku soo qaad, ha isdaciifinin, u ogolo naftaada inay kor fiiriso. hami inaad leedahay waay, hami aad leedahay aad hiigsanaysid. ha noqon qof la hogaamiyo. waxaa lagu sheegay nin ma jiro, nin qurxanaaga haysato naagiya nimanka la wadaagayna. waxa inta la soo taagan tahay afar baa Ilaahay u baneeyay. Ilaahay afar u baneeyay waa run, laakiin afarta waajib waxa ma aha, qasab ma aha. tiisa daryeela tu kala ku dara. afar hadduu ka bixi karo oo cadaalad u wada simi karo uu tan jaceelku u siiyo saddexda kalena siin karo ayuu u banaantaa. laakiin waxa raadinaysiin jaceyl ma aha.